الله يو أذا أود وهين له ومدهن انتظى أي في عنسي الله يو أذا أود وهين له ومدهن انتظى أي في عنسي إله كلام مجرى حق الله وأديك موياني أدونكيو رسولك هو محمد آمين أمني يدوشي سنة بتقليبه وذا أهيسي أحد سمد أديك أهون لا اسمونين سبحانه إن كريد يوذاك إلى شندي عبادة أدو قرآن بإستاهله وحاتها أمام ذي الله لما أبو راي أصلك أصل عن إمنا جري أبدا شوقو أدان سنبا أونك أشبهين أيننا لهين كئب يندب إن إيا نسخان قبي أهانتود أبوان على داقو إلهي أمانتي سياودي سبوات شيكتايا مراد كان لا دايم حد ويدي سويدي هيا على داق قدوميا إن لو مقعابا ميو ربيا ورنا ميو لانكو لانكراميد أو مقاجا إن سوفي لهراو يا جددين تيروكس وليبا تتكاري جراي مراد كان نيدا كو قبصوي انتاسي انتاس بيساني إسي marka abwaanka muraad yeelo isaka haysade wali isfadaw si weydiisad qoray ilaahay ma in fatashtaaysan nin xil qaaday qaadiyay hooy walaal lama dhihin war abdulla waxa kale oo la yiri ninka uu ildeerba dadka ugu ayaan daran war yaa ku dilay war libaana waxaad ka tagtay maskaxda laga abaarobay war gaboos adigana ma lagu hayaa war dhamaantiinba waliba ku tabteena waxaan lala ogeynba isaguun u muuqdee waranna waxaan ku darayaa garashada la eeday lagu ay doone waragu wiil la jannay anna waxaan ku dari lahaa allah yow adaa awood weyn leh ummadeen antada ay fiicansi allah yow adaa awood weyn leh ummadeen antada ay fiicansi الله يو أذا أود وين له ومدهن انتظى آية في عنسي الله يو أذا أود وين له ومدهن انتظى آية في عنسي warnamiyo basiidu hata ka hor madheegnaba u subta aryaadaha anigu bariyahan waa yaabay madaxweynaha iyo dadkoo magacaabayoon waaga tilaab qaadin dad badanaa eeda ku dhoobow haaya waxaana isleeyahay anigu baroortu orgaga ka weyn aga nin meel u caddahay meel ku madow soo lama odhanin bariyahanna mahad salaad nabad sugidda loo magacaabo asagoon xilka la wareeginaa la xagxagahaayay soomaaliduna waxay tiraa qof aan socon ma kufo nin xil qaadayna eed huri maayee eedaanba fursad la weydoonin lagu xagxagtee waxaan dhihi lahay eedahan hordhaca inya leeska dhaafo samigay cabdulla taladan oo soo jeedshay ha la qaato haye cabdulla muxuu yidhi noo sheeg bal qoftu hadday wax qaabata qalad yaa sax mid loo qabta qoftu hadday wax qaabata qalad yaa sax mid loo qabta war cabdillow dad badan oo xanaaqsan baa jire eedooda inay hormarsadaan maxaa loogu diidi hooyo hanaasiin bilandhalnanin tilmaamayana war waxaa kaloo la yidhi dambaabura haddaad soo martay adiga hulaaqaysa iyo dogob la soo jiiday iyo xaaba wada daaran ogoobay waxbuu duban rabaa kii diyaarsaday haddaad aragtid dhowr daasadoo meel diriya taalla iyo caag duleeliya midaan wadan daboolkiisa dan unbuu ka leeyahay qarfaha ruuxii daadsaday haddaad aragto reer lagu dabaqo dawladnimadiina iyo hadallo deelqaaf watoo lagu dembaabayo asaguna xil buu doonayaa kii deliishaday haddaad aragto kaan doorannaba ruux dacaayadiya ee ninkuu dembiilaha ka dhigaya dadka u sheegay maalintuu xilkii nooga dego dibaddana u dhoofo soo noqo ducaysana yidhaa shalay ninkuu dayrshay ee durbaan khiyaanaha sitoo laba dublaynaya asna daabankiisii iyo afkaa dilay naftiisa waryaada reer qurac jooge qaadunkii waddankeennoo dhowaantaan xilka qaaday waxbuu qaybinayaae horta mee qismihiinni qayluun baad ku jirtaane war axmedo waxaa kaloo la yidhi xilka qaran inuu meertan yahay xeerarka qaba nin kastana wakhtaa loo xadiday xarunta jooga in xor iyo sinaan loo tartamo baa xalaal badane xujo noqotay somalilan xiisadaa jira warnamiyow landakanagaba dareen badanya landogomana eed badanya walaagi shalaysiin dili doorow inoo artan an iska dayteen abbow balaaye
aayar warmadeeyo laascaana inaad ku noqoto ma rabtid miya wargooyin warun baa iska daldalaysaana ra'iisul wasaare mabaa la magacaabay war kalamaanay mar kasta shaqa aan lidin dirsan baad gashaane wasiir ku-xigeenka cadaaladda cabdicasiis qambe wuxuu yidhi aga cadaaladda in la waafajinayaa miyuuna leeyahay ayadoo maqan baan ogaayo cadaaladii miyaa la soo helay war cadaaladdu waa tii masar laga helay oo gabadha soomaaliyeedoo ninka dulmiyey dishay la yidhi waad isdifaacaysay dembina ma lihid ee ma dalkeennay soo gaartay alleelahay gabadhaa iyo igraan taxaliil way kala nasiib badan yihiin aryaadhaha garsoorka inta mudici madax ka yahay cadaaladii aan loo fadhin war weli shaqa aan lidin dirsana faraha kula jirtiine wasiirku wuxuu yidhi dhakhtar caafimaadka xoolaha bartay baa wuxuu yidhi haddii faraskaannu muddo 3 beri ah kici waayo waa in la dilaa kadibna wan ayaa sheekadii maqlay dabadeedna wuxuu u tegey faraskii si uu u kiciyo laakiin faraskii daal badan dartii uu kici waayey maalintii labaad ayuu haddana ku noqday bal inuu kici karo mase suurtagelin oo faraskii waa ruqaansan kari waayey maalintii saddexaad ayuu ku noqday isagoo dhiirigelinaya ayuu yidhi kac haddii kale waa lagu dilayaa ugu dambayn faraskii waa kacay isagoo ka baqaya in la dilo nin beeraley ah oo faraskii iska lahaa ayaa markii uu arkay in faraskii istaagay si farxad leh wuxuu u yidhi waa inaan u dabaaldegnaa caafimaadka faraska lana gowraco wanka si aan ugu dabaaldegno marka sheekada dulucdeedu waxay tahay ha gelin shaqa aan ku qusayn haddii kale sidii wankaas ayaa kugu dhici karta war cabdikuusow bilaashaad noogu hanjabaysaaye sheekadaadu sal iyo raad inaysan lahayn waxaa caddaynaysaa farasmaba fadhiistaba war axmedow adaan garanayne farasku markuu dhiman rabo wuu fadhiistaa war liibaanow fardaha aqoon dheer baad u leedahay ma daraawiishtii sayidkaad ka mid ahayd war fariskii khayre lahay inta jeymis madatooyigu ku dhahtabi warwar ma haysaana waxaa la yidhi dagaalkii ruushka iyo yukrain ma istaagay war ciidankii maraykanku yidhi soomaaliyaan ku celinayaa miyaa la keenay horta ustaad afwarqi ubadkeenni meel ma ku sheegay war soomaalidan maalin walba u qayliyaya ilmaha integreeshinka lagu xoojinayo ee baraadar abiy axmed difaacaya may arkaan kuwa iyagu idabdarrada isaga laynayaan 24 sac war baraadar warkiisa uma dhammaan war waxba laydinma sheegi karee madaxtooyada soomaaliya dayn baa lagu leeyahaa la yidhi war dukaankee ka amaahadeen war madaxtooyadu daynta maxay ku qaadatay teeda kale lacagihii shaxaadkaayoo dadka loo ballan qaaday daynta la wareejiyey ma ku jiraan aniga laftirkeygu waxbaan sugayey aryaadhaha lacagti kaambeynka lagu gelaayo miyaa dayn ahayd war hadda CBB lacagtay dadka ku caayi jireen ma layska rabaa warwarka hayga qasanin agaasimihii hore madaxtooyada maxamed cabdulaahi ciise aga war maxamed cabdulaahi waa ma gartay ciisuhu ma farmaaja war adigaanan fahmine madaxtooyada waxaa ka baxay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxamed cabdulaahi ciise waxaana la wareegay xasan sheekh maxamuud iyo xuseen sheekh maxamuud horta xasan iyo xuseen ma mataanay ahaayeen wareedhaa waad waalantiina warka hayga wareerinine agaasimihii hore madaxtooyada agaasimaha cusub ee xuseen sheekh wuxuu ku yidhi agaasime waxaan kugu wareejinayaa shaqaalihii iyo qalabkii madaxtooyada iyo buugga daynta madaxtooyada lagu leeyahay war agaasime maxamed cabdulaahi intaa keliya ma wareejine wuxuu kaloo wareejiyey liiska shaqaale si dadban madaxtooyada ula shaqaynayey kuwa si isxilqaana ku shaqaynayey iyo xataa kuwii raacay madaxweynihii xilka banneeyey aryaadhaha cabdinuur maxamed axmed ma shaqaalaha tegayow ku jiraa mase kuwa jooga warnimayo horta madaxweyne farmaajo wuxuu dhowr jeer sheegay inuu ku daysanayo allah u naxariistaa madaxweyne aadan cadde laakiin waxaa la yaab leh madaxweyne aadan cadde allah u naxariistee wuxuu xilka wareejiyey dalka soomaaliyoon taana dayn ah lagu lahayn madaxweyne farmaajana dalkii kale iska daaya waa taa la leeyaha madaxtooyadiiya dayn lagu leeyay war nimanyow anigu waxaan garan waayey shaqaalahan dadban ee la sheegahayo shaqada dadban ay qabanayeen maxay tahay war xoogagga waddaniyiinta miyaadan aqoon CBB miya aga war CBBdu maheegoo kalaa awal baan la yaabaya oo intaas iyo boor isku qariskaasu inooban bilaashayn aniguba waan malayn karay waxaan lacag ahayn inaan nimanku dhalin aabba lagu dhihi karin war waxaan maqli jiray lacagey ragga kala labeeyay liitaha gargaaray laqanna hoosu celiyay warwar ma haysaana agaasime maxamed maxamuud gaboose oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin badan oo uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka injineer yariisow allah u naxariiste ayaa wuxuu dawladda cusub ka codsaday in caafimaad dibadda ah loo diro war agaasime gaboose wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo firfircoon oo aqoon-yahana lixaadkiisuuna ku waayey qaraxa asagoo dalka u shaqaynayo wuxuuna mudan yahay intay naftu ku jirto in la daryeelo oo lala tacaalo war madaxdii hore hadday gaboose hagradeen kuwa cusubi waa inay
inay u gurmadaan oo il naxariisla ku fiiriyaan. dawladdu usub anin wali kaloo arafaday ninbu wuxuu taraa lagu tixgelin noqonna taariikh. war waxaa la yidhi eejashii dhammaata ifka joogi maysee waxaa xijaabtay oo bulshada soomaaliyeed weyday shakhsi muhiim ahaa oo muddo dheer ka shaqaynayey nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo u gargaarka dadka taagta daran. allaha u naxariistay cabdulaahi maxamed shirwac. aaskiisana waxaa ka qayb galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo madax kale. war allah u naxariistay cabdulaahi maxamed shirwac ummadda soomaaliyeed waxay ku xasuusataa tubta nabadda. war shirwac oo kale dad wuu ku yar yahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. aryaadhaha ilaahay ma naxee waa naxariistaa. shirwacna waxa u lahay tilmaamihii ahlu khayrka ummadduna hee waa markhaatiyo waa tii alla noo sheegay. hadda ilaahay qabriga hoo waasiciyaan leennahay. dumarkuu ka tegey iyo daymada carruurta dadka iyo dalkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeq